dhulka hoostiisa waxaa ku yaala magaalooyin qarsoodi ah oo laga heli karo meel walba oo dunida ka mid ah. qaar ka mid ah magaalooyinka qarsoodiga ee dhulka hoostiisa ku yaala waxaa la daafuray sannado dhow. qaar ka mid ah magaalooyinkani dhulka hoostiisa ku yaala waxaa laga helay beero hoostooda, halka qaarka kalena laga helay dhismooyin guryaha hoostooda. waxaanse muuqaalkani aan ku soo qaatay hal magaalo oo keliya dhulka Baariis. magaaladani dhulka hoostiisa ee Baariis waa magaaladii ugu weyn ee dunida inta la og yahay ee ku taala dhulka hoostiisa. waa magaalada dadkii dhintay waxaa dhinac walba ku wareegsan lafa iyo qolfoof wejiye bani'aadam ah. waxaa ku jira 6 milyan oo lafa dad dhintay oo bani'aadam ah. magaaladani gudaheedu waxaad moodaa in webi uu qulqulayo, meel walbana waa wada biyo. sidoo kalena qaybo badan oo ka mid ah magaaladu waa qabriyo, darbiyadeeduna waxaa xarfaha lagu qoray dhiig. boqolaal qof ayaa magaaladani isku dayday in sir ay ka raadiso, balse ciribtooda dambe halkii ay ku dambeeyeen lama oga. ilaa hadda qaybo badan oo ka mid ah magaaladanina sirteedu waa ay qarsan tahay. waxaa albaabka koowaad ee magaalada ku qoran qofkii halkani soo gala rajada noloshiisa dib ha uga soo tago. dad badan oo ka madax adeegay hadalkanina dib dambe war loogama qaadan, lamana oga ilaa hadda halka ay ku sugan yihiin. madaxa dalxiisayaasha ee magaaladani ka Campus waxa ay sheegaysaa in dadku markay arkaan walaac xoog badan iyo cabsi iyo fikrado kala duwan ee xagga magaalada in maskaxdooda uu ku dhashto. magaaladan dhulka hoostiisa ee Baariis waxaa lagu sameeyay cilmi baaris kala duwan. waayo dadku xiise qaas ay u leedahay meel aan qoraxda ku dhicin inay arkaan. example-ladii lagu sameeyay waxaa ka mid ah in lagu tijaabiyay in lagu noolaan karo ama in kale. waxaa la dhigay Vantan Sambarita nooca malayga loo yaqaano, balse kuma uusan dhex noolaan. asal ahaan magaaladani dhulka hoostiisa ee Baariis ee 300 kilomitir waxay dhalisay in dadka maskaxdoodu waxyaabo kala duwan ay ku fakaraan. sans lumière, donc on a par exemple implanté au souterrain des carrières qui sont sous Paris environ 300 km. waxaa sidoo kale magaalada laga sameeyay dhowrkii sano u dambeeyay filimaan kala duwan sida filimka Ase Buuf Sow Bilow. waxa uuna ka hadlayaa qaybo badan oo ka mid ah sirta iyo cabsida magaaladani, khaasatan todobadii wiil ee Faransiiska. My name is Scarlett Marlowe and I'm a student in urban archaeology. 370 feet beneath this point is a hidden chamber that might contain a critical missing piece of our history. How are we supposed to get down there? Catacombs. There are 200 miles of tunnels right underneath our feet. They're holding the remains of 6 million corpses. Stop. This is the Empire of the Dead. These are human bones. We go through here? Let's do it. dadka qaybo badan oo ka mid ah waxa ay sheegaan in magaaladani dhulka hoostiisu ay ku nool yihiin koox shaydaanada caabuda, lafahana quudata. qaar kalena waxa ay sheegaan in jiniyaashu ay ku nool yihiin, qofkii ay bannaanka ka soo qabtaanna halkaasi ayay geeyaan ama ay ku gowracaan. qaar kalena waxa ay sheegaan in halkaasi ay ku nool yihiin dariiqo qaas ah oo ka duwan dariiqooyinka caadiga ah ee la yaqaano. caqiidada Bagaan ee shaydaan caabudka sida ay qabta marka loo eego 7 sanaba waxaa dunida daafaheeda qaybo badan oo ka mid ah laga keenaa dad yow kala duwan ee shaydaan caabudayaal ah, waxaana laga soo geliyaa kanaalo qaas ah oo cidina aanan ogeyn. halkaana waxaa laga siiyaa tacliimaadka shaytaaniga ah ee mustaqbalka, waxaana lagu gowracaa halka 7 qof oo bani'aadam ah. qaar kale oo ka mid ah dadkuna waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku nool yihiin. si aad u daawato muuqaalkani oo dhammaystiran, linkiga xagga sare kaaga muuqdo inaad ku dhifato waa ay kugu filan tahay.